kulankani oo ay soo qabaqaabiyeen dhalinyarada ka soo jeeda deegaanada Somaliland ayaa lagu taageerayay shirka wada hadalka dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland uga furmay magaalada Djibouti ee caasimadda dalkaasi. shir jiraayad oo dhalinyarada galabta ay ku qabteen magaalada Muqdisho ayay ku soo dhaweeyeen wada hadallada u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo Somaliland waxayna ku tilmaameen in ay tahay arin bogaadin mudan isla markaana dhalinyarada deegaanada ka soo jeeda Somaliland ay soo dhaweynayaan shirkaasi. dhalinyarada qaarkood oo warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in rajo wanaagsan ay ka qabaan in qodobo wax ku ool ah ay ka soo baxaan shirkaasi, iyagoona dhanka kale madaxda ka qaybgalaysa shirkaasi ku booriyay in ay muujiyaan tanaasul si looga shaqeeyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. kulankaana Soomaalida waxaan rajayn doonaa in ay ka soo baxaan wax ay taariikhdu bari xusto, waxa mustaqbalka dhalinyarada iyo ummadda Soomaaliyeed baritaan u ah ayaan rajaynaynaa inay ka soo baxaan. Soomaaliduna wanaageeda iyo kollay gumaystaha kadib wuxuu ka bilaabmay waqooyi iyo koonfur, haddana waxaan rajayn doonaa inuu ka bilaabmo koonfur iyo waqooyi wada hadalada ballaaran ee magaalada magaalada Djibouti loo fadhiyo in war wanaagsan oo dhigaha Soomaalida farxad geliya ay ka soo baxaan. marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala u fududeeyay labada madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi inay maanta ku kulmaan magaalada Djibouti. waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha dawladda aynu walaalaha nahay Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo isagu ah xubin aad u weyn oo ka qayb qaatay sidii shirkaas maanta uu midho lahaa lana soo iman lahaa. waxaan maanta doonaynaa inaan bogaadino annaga oo goboladaas oo dhan ka kala socona shirkaas inaan bogaadino. waxaan doonaynaa inaan xasuusino odayaasha halka isugu tagay sida hore loo sheegay isu tanaasulka. waxaan kale oo doonaynaa inaan xasuusino inta kale ee ka maqan inaan la iska dhigo meel kelmadii ahayd looma dhama aqoonyahanka dhalinta Soomaaliyeed ee xagga joogta ee ka soo jeeda goboladaas waqooyi qaybtooda ka mid ah ee anagu nahay waan taageersanahay waan ayeedsanahay wax walba oo ka soo baxana wax halka lagu heshiiyana waxaan ognahay inay tahay wax dadka Soomaaliyeed dan u ah. arrintan ayaa imaanaysa xilli galinkii dambe maanta magaalada Djibouti uu ka furmay shirka wada hadalka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Somaliland, waxaana dhanka dawladda shirkaasi uga qayb galaya wafdi ballaaran oo hogaaminaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyadoona dhanka kale ee Somaliland uu hogaaminayo madaxweynaha Somaliland oo shirkaasi ku sugan. Cabdulqaadir Fantastic, warbaahinta qaranka.